kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xildhibaanada wadaqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ku dhawaaqay xubnaha guddiga doorashada madaxweynaha ka shaqeyn doona haddaba waa kuma shakhsiyaadka loo xilsaaray doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya ay kala taageersan yihiin farmaajo oo helay xubnihii u badnaa guddiga ka shaqeynaya doorashooyinka dalka Soomaaliya xildhibaanadii gadaal ka doortay oo gabi ahaan maanta xaadiray kulankii golaha shacabka xaalada siyaasadda ee Soomaaliya oo qasan cabdi xaasho oo shaaciye nooca madaxweynaha ee Soomaaliya u baahan tahay iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya ayaan ku eegaynaa warkeenan balse marka hore saaxiibayaal u diyaar garooba qodobada hordhaca warka daawateen oo dhameystiran aynu ku bilownay xildhibaanada qale baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ka shaqeyn doona taas oo dalka markan u jiheynaysa in isla bishan May dhexdeeda lagu kala baxo doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya aan ku hormarno guddiga doorashada ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maadaama labada qale maanta aysan kulan wadajir qaadan oo ay kala fariisteen taas oo dib u muujinaysa khilaafka labada qal ka dhex qarxay haddana gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Aadan Madoobe ayaa magacaabay inta badan xubnaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee madaxweynaha tobnaad guddigan oo qaybka golaha shacabka lagu soo dari doono qaybta kale ee aqalka sare maanta lagu dhawaaqay ayaa waxay magacyadooda kala yihiin xildhibaan Mawlid Cabdi Maxamed xildhibaan Cali Xaaji Daahir xildhibaan Nuur Mustafa Mukhtaar xildhibaan Beerey xildhibaan Maxamed Ibrahim Macalimu xildhibaan Maxamed Cananuug xildhibaan Cumar Yuusuf iyo sidoo kale xildhibaan Fardowsa Maxamed Cigaal gudoomiye Aadan Madoobe ayaa sheegay in xubnaha dhimanna la soo magacaabi doono saacadaha soo aadan guddiga ayaa guud ahaan ka kooban 12 xubnood oo isugu jira golaha shacabka iyo aqalka sare xildhibaanada golaha shacabka ayaa qaabeeleed ka fadhibic shanaha u soo xulay xubnaha guddiga la magacaabay taasoo ka dhigan in dalka hadda u jeestay dhabihii doorasho madaxweynenimo Soomaaliya ay si rasmi ah uga dhici lahayd inkastoo maanta ay fashilmatay qorshihii ahaa inay wada fariistaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa haddana labada aqal dhan kaleeto ay kala fariisteen waxay ku dhawaaqeen xubnaha sida saxda ah uga shaqeyn doona doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya dib u kala tirsanaya xildhibaanada loo magacaabay ka shaqeyn doorashada madaxweynaha waxaana markaa soo baxaysa in farmaajo uu gacanta ku haysto xubnihii u badnaa ee doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya dhankiisa gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa ku dhawaaqay liiska 6 xubnood oo aqalka sare oo ka shaqeynaysa iyaguna doorashada madaxweynaha ku biiri doonta xubnaha kale ee golaha shacabka ee Soomaaliya xubnaha aqalka sare ee ka imaanaya waxaa ka mid ah senator Cali Maxamuud Gacal oo koonfur galbeed ka yimid senator Prof Cabdi Ismaaciil Samatar oo Somaliland senator Cabdi Qani Geelle Maxamed oo Puntland senator Farxaan Cali Maxamuud oo Galmudug senator Ibrahim oo Gaab Cusmaan oo Jubbaland iyo senator Zamzam Cabdullaahi Axmed oo Hirshabeelle ka imaatay iyaguna 6 xubnood ayaa ku matali doona aqalka sare inay ka shaqeeyaan doorashada ee ka dhacaysa Soomaaliya ee madaxweynenimada waxaa kaliya ka dhiman gobolka Banaadir iyo xubnaha Banaadiriga halka qof ee ku matali lahaa guddigan taasoo Cabdi Xaashi gadaal u dhigtay sida xogaha aan helayno ay tilmaamayaan dibadda doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo si weyn loogu loolamayo ee awoodda wala kala qaybsanaya mucaaradka iyo hadda waxa ay heleen xubno ee ku matali doona guddiga doorashada oo ugu yaraan ee u soo xaglin doona in dhankooda loo badiyo guusha sida Cananuug iyo xubno kale oo ay ka mid tahay Samsam iyo sidoo kale Prof Samatar iyo xubno kale ay gacanta ku dhigeen mucaaradka balse dhanka farmaajo waxa gacanta ugu jira Macalimu iyo sidoo kale xubno kale oo iyaguna ka imaanaya Galmudug Hirshabeelle iyo koonfur galbeed Soomaaliya waxaa lagu dagaalamayaa awoodda guddiga maamulaya doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya oo mucaaradii maxaafid ay isha ku wada hayeen maalmihii ugu dambeysay bas maanta ugu dambeyn lagu dhawaaqay in kasta wali dhiman yihiin dhanka iyo golaha shacabka xubno fara badan oo marka loo fiiriyo awood qaybsiga beelaha ay dhiman yihiin ilaa 7 musharax oo 7 xildhibaan oo ka shaqeyn doonta iyaguna doorashada madaxweynenimo ee dalkan Soomaaliya dhinaca kale arrin cajiib ah ayaa maanta ka dhacday hoolka aqalka golaha shacabka ee Soomaaliya kadib markii xildhibaanada Giriye wada xaadireen gudoomiye Aadan Madoobena uu xanaaqay isla markaana uu soo saaray in go'aanka badameysa laga qaadanayo xildhibaanada Gedo ee ka yimid Ceel Waaqi Garbaharey oo dhamaantood soo wada xaadiray kulankii maanta ee golaha shacabka kulan golaha shacabka ayaa maanta waxa hareeyay isjiid iyo siyaasad arrimo quseeya
iyagoo 32 xildhibaan laga soo kala doortay ceelwaaqi garbaharey ay xaadireen shirkaasi gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa magacaabisad ka mid ah guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee 10aad taasoo ka dhigan in qayb ahaan la gaaray guusha balse waxaa soo xaadiray ilaa iyo 32 xildhibaan oo laga soo kala doorto ee ceelwaaqi garbaharey taasoo weli muujinaysa inuu taagan yahay muranka doorashada ee gobolka Gedo Aadan Madoobena maaro u leeyahay balse gudoomiyaha Madoobe oo shir gudoomiye kulankii baarlamaanka ayaa waxa uu ka hadlay isla qabsiga ka taagan xildhibaanada laga soo kala doortay Gedo Aadan Madoobe oo shakhsiga ugu xil sareeyay xilligan dalka ayaa sheegay in buuqa xildhibaanada ceelwaaq iyo garbaharey lagu soo kala doortay ay muddo soo taagneyd gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay inay go'aan wixii maanta ka dambeeya soo saari doonaan oo hadda kadib loo soo fasixi doono inay xarunta Villa Hargeysa soo galaan xildhibaanada sharciga oo kaliya maanta kulanka ka dhacay xarunta baarlamaanka ayaa waxaa xaadiray 32 xubnood ee laga soo kala doortay ceelwaaqi garbaharey mid walbana sheeganay inuu yahay xildhibaan sharci ah oo golaha shacabka ka tirsan lama oga go'aanka ka soo bixi doona guddoonka golaha shacabka oo ku aadan xildhibaanadaasi iyo waxa lagu kala xugmin doono doorashadii ay ku soo baxeen inkastoo dhinacyada ceelwaaq iyo garbaharey ka soo kala baxay mas'uuliyiin matari la kulmeen Aadan Madoobe sidoo kale najiis oo la kulmay Aadan Madoobe kala hadlay in la eego xildhibaanada garbaharey oo iyagu sharci yihiin iyo dhinaca kale Roble Madoobe oo cadaadis weyn ku saaraya Aadan Madoobe inuu aqbalo xubnaha lagu doortay magaalada ceelwaaq oo iyaga yihiin xildhibaanada sharciga ah taas ayaan hadda leeyahay waxay sii kordhisay muranka weyn ee maanta reeyay korinta soo furmin kulankii baarlamaanka federaalka gaar ahaan golaha shacabka ee maanta laga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo miisaaniyadda Soomaaliya sidoo kale waxaa si weyn isha loogu hayaa xaalad doorashooyinka ee dalkan Soomaaliya iyadoo beesha caalamka ay dalbadeen in la dejiyo doorashada madaxweynenimo ee dalkan si Soomaaliya ay uga baxdo xaaladda hubanti la'aanta ah muddo ay ku soo jirtay iyo doorashadan soo jiidantay sanadaha badan oo dalkan gelisay xaalad khatar ah waxaa la filayaa in guddiga marka la dhameystiro kadib ugu dambeyn lagu dhawaaqi doono go'aanka rasmiga ah ee xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya oo la aaminsan yahay inay dhici doonto dabiiqada bishan May oo ugu dambeyn bisha May wax ka dambeeya Soomaaliya yeelan doonto madaxweyne sharci ah oo dalkan iyo dowladnimada Soomaaliya marka la sii hogaamin doonta hase yeeshee marka waxa soo xoogeysanaysa rajada Maxamed Abdullaahi Farmaajo uu ka qabo kursiga madaxweynenimo ee Soomaaliya iyo in marka uu hanan karo kursiga ugu sarreeya ee Villa Soomaaliya Farmaajo oo saacadihii ugu dambeeyay kulamo kala duwan la yeeshay xildhibaanada qale baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda si hoose wata oo liis doorashada madaxweynenimo wuxuuna xubno saameyn badan ee ku leh uu ku dhex yeeshay guddiga doorashada madaxweynaha maamulaya ee xildhibaanada labada qale baarlamaanka Soomaaliya taasi oo ku muujinaysa in weli rajo fiican uu leeyahay Farmaajo dhanka mucaaradkana quusay weli muujinayaan qaarkood waxaana iyagu qudhoodu ay sii wadaan dadaal xooggan ay kula diinayaan cod badan si ay u helaan waxayna kulamo kala duwan ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyagoo saacadihii ugu dambeeyay qaabilaya senataro iyo xildhibaano baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan oo mid kasta fikirkiisa siyaasiga ka gadayay balse weli waxa muuqanaya in dagaalka siyaasadeed oo hadda u dhaxeeyo kaliya Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed oo taageerayaashooda ay si weyn baraha bulshada ugu dagaalamayaan inkastoo hadan leeyahay Shariifka waa shakhsiga kaliya loo arko inuu bedeli karo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka la eego mucaarad kale ee Soomaaliya oo meel dheer ay kala tageen iyaga iyo Farmaajo taasina ay hadda ka dhigan tahay in xitaa Villa Soomaaliya raali ka tahay in xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya uu qaato Shariif Sheekh Axmed halkii shakhsi kale oo mucaarada uu qaadan lahaa Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Cali Khayraad Xaan Shukur Warsame qudhooda ma yareysaan oo kulamo kala duwan oo dalka socda ay wadaan waxayna bandhigyo ku sameeyaan magaalada Muqdisho iyagoo dhanba kale soo bandhigay taageerayaasha oo ku haysta caasimadda Muqdisho balse codka shacabka ma ahan codku waa xildhibaanada iyo ninka ugu saameynta badan waxaan hadda isha lagu hayaa Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed oo kaliya guud ahaan saaxiibayaal oo nageynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgeliyo